رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سابنا صيامنا ما بنلعب مرحب maanta waa cleaning day maadaama ay cleaning day tahay maanta guriga rabaa inaan iska hagaajiyo iska xaaqo iska tirtiro iska nadiifiyo meelaha wasaqda ah oo dhan and then maanta waa axad anigana madaxa aan dhaqdo maxaan kuu sheegaa saliida hadda madaxayga ku radsan maadaama aan shaqeynayo waa inaan maaska yara iska marsado wejiga soo hal yoogad ah hal qaato yooganaya qasil yar عندنا هرود ير meelaan ku shubayaa wax yar oo malab aan ku darayaa malab hurudi waa malabkii waa qasilkii yoogadkii intaas aan ku darayaa banaan iyo liin dhanaan ana hadda kafeey ma rabo kafeega mar gooniya samaysanaya okay intaana soo marsanaya gurigan ku shaqeynaya insha Allah hadda waxaan imaaday sariirtii aan dul imid marka sariirta go sariireedku ii fiican yahay aan saaray nadiif ayuu ahaa waayo 2 maalin uu saaran yahay 3 cisho ama 2 cisho and then aniga week ama waxaan saaraa go sariirka aan ka bedelaaday week adiga ugu badnaatan 8 bari camal adi iska week bay qaadataa marka hadda waqtigiisa lama gaarin aan bedelayay go sariirta ayaan googlayaa si fiican oo googlayaa alxamdulillah de maanta waxaa ilaahay qadaray ina idin tuso de marka guriga cleaning gareenayo soo mar walba guriga waa la hagaajiyaa laakiin ina idinkana de aan aragtaan bal gurigeyga uu clean gareenayo mar dhow horta ciid waan bedeli doonaa guriga insha Allah wax yar waa ka bedeli doonaa mar dhow aan gurigan soo degay marka xooga alaab badan uma baahna laakiin wax yar u baahan yahay haddana barkimiya ayaan toosinayaa barkima aan aad ku badanaa sariirta jeclaa waliba barkima badanaa ka kala dajiyay waxaan ku soo reebay intaas waa meeqa 3 yar yar iyo 2 waaweyn marka oo 4 waaweyn iyo 4 yar yar bay ahaayeen marka waa kala yareeyay waa sariirta buuxsantay and then go-aas ayaan huwadaa go-aasna waa winterkan xoogaa waa laga huwan karaa samarkan waa lagu huwan karaa labadaba soo bustii waan iska xareeyay sababta bustaha markuu winterka zaaid ku yahay ayay wiyaan ficlaha markaas dhan waan dhameeyay haddana koobadiinki ayaan maaragtay hagaajinaya silsiladaas aan soo qaaday way iga kala halowday way isku dhex gashay marka waa inaan kala furfuraa haddana wixii aan ka dejinayaa halkaas yarka oo koobadiinka ii saaran waxa iskaga xijiyaa inuu koobadiinka uu cad yahay inuu wax gaaro lacala hadii wax ay ku dhibcaan oo kale inay baashaas dirin camal weeyaan inay gaartaan roon intuu koobadiinka wax gaaraha waa uu cad yahay koobadiinka ayaa si fiican u tirtiraya marka hore kuluud mara yar oo qoyan ku soo qaaday marka xigtana mara qalalan ayaa ku tirtira haddana alaabta ku cilinaa kitaab quraan halkaas ii saaran kitaabkayga halkaas ayaan ku cilinaya meeshas ayaan doorbiday inaan dhigo roogi ayaan jafayaa haddaba aragtaan roogii oo ii yaalay armaajadii sariirta laba dhexdooda roog kale oo yariis oo cad aan jeclaasnay TV-ga hortiisa aan dhigta ayaa jira asagana waa jafayaa yeah waa kaasa baashas waxaa soo qaatay lagu nadiifiyo daaqadaha miisaska hadii waxyaalihii dhaldhala oo dhan baashas lagu nadiifiyaa haddana miiska ayaa hadda si fiican u tirtiri doonaa dhag ayaa miiska siiso maaha miiskan waa dhalo soo maalin kasta waan tirtiraa waa qasab waayo marka haddaa biyo yara ku cabtid ama shaax haddaa lasoo fariisatid soo miiska wuxuu noqonayaa wuu kasoo baxaya isla markii soomaad dhan waa inaad daba taagnaataa tirtirtaa soo miiska ayaan tirtirayaa kaamirada xataa waa la tirtirayaa waxaan kuu soo haray markaa dhameeyey alxamdulillah miiska si fiican aan u tirtiro waan iska baashaalaya miiska markaa tirtirayana laptopkii haddana hadda tirtirayaa marmar geesaan iska fiirna daaqada iiga soo horjeeda moogta soo marmar daaqada iska hoosha intaa qabanayo waxaa ka badan intaa daaqada daawanayo waayo guriga daaqadeyda waa meel yaroo iska macaan waxaa iga soo horjeeda aad u qurux badan aad u fiican soo meesha iska daawo weliba samarka ayay qurux badanta hadda ma qurux badnaa
yaa haddana tv-ga ayaan miiska tv-ga ayaan hagaajinayaa sababtoo ah guriga ma aqaan mar walba boor baa soo gala meel uu kasoo galo boorka ma garanayo soo tv-yada iyo miisaska waxaan arkaa haddaan hagaajinaya haddaa tirtiraya isla daqiiqad gudaheeda boor ayuu noqonaya soo waa inaa ka qaadaa mar walba boorka daaqada iska daawanaya iska camiraday waaba usoo istaaga war jecli baashasaa iska daawanaya oo nadiifinaysa geedaha marka anigana waxbaa hagaagsanaya reerka guriga iskalena waxaa ragta waxay iska hagaajinayaan ayagana banaanka sababtoo ah samar ayaa soo dhow soo geedihii iyo wixii bay qurxinayaan anna waa la daawanaya dee camal la-aan daaqadihii haddana guriga ayaan aada u tirtiraya hagaajinaya sababto daaqaduhu boor bay yeeshaan wasaq kale ma laha oo waa nadiif laakiin boor bay yeeshaan amdan marada mar walba ani marada waxaan soo mariyaa biyo daaqadaha soo daaqadii ayaan si fiican uga meerayaa maaragtay boorkii iyo wixii wasaqdi ku haray yaa marka hadda waxaan umaleynaya dhag wey meeshaan arka reerka guriga ayagana hagaajisay ku jiraan anna hagaajisaan ku jiraa so waa huufarka yarkaa bahalkan yarkaa ah wuxuu sameynayaa wasaqda meeshaan ku jirto dhan uu ka bixinayaa isagaa is hagaajinayo sug aan daawade ujeedaa midaada kale halkaas bisadaa kasoo jeeda bisadaas 3 saacadood baan hadda meelahan marmaraya 3 saacadood kursigaasay saarantahay way iga raaxa jeceshaa kursigaas birita anaa iskale biri anaa fariisanaya yarey igama fariisan kartid okay oo marka halkan waa guriga reerka iskale ayaa hagaajiyay dadkan cadaanka waxay jecel yihiin inay qurqurxiyaan soo meeshaan oo dhan waxay noqonaysaa ma taqaanin cagaar bay noqonaysaa geedahan way wada jareen way ka gaabiyeen way qurxiyeen way dheeraanayaan ubaxyay soo bixinayaan insha Allah samarka waa idin tusi doonaa dee guriga hortiisa halkaas waxa idin ku duuduubi doonaa banaanka u bixi doonaa insha Allah samarka waa kursi wiifo ah oo la isku ruxi karo meel raax halkan waxay ii dhigeen ba laabadkaas ma arki kartaa laakiin waxay ii dhigeen 2 kursi miis innaba caadi ma ana nadaafadeedan sii wadanayaa waa baaldi biyaan kusoo shubtay kuluud iyo waxaan kusoo shubtay bahalkii andana halkaan dhigan hadda waxaa la gaaray teemkii armaajada 2 armaajo guriga ii taalo marka tan kalena waa dambaysiinaya laakiin tan ayaa nadiifinaya boorsooyinka ayaan ka qaadaya waxaan saartaa boorsooyinkii kabaha ayaan saartaa iyo maaragtay wax yar oo shoobina barfuunada iyo waxyaalaha kareemanka iyo waxyaalaha muhiimka inuu ii dhawaado sariirta markaan jiifo rabo sababta suuliga uu buuxaa suuliga qaanadii dhan uu iga buuxaa saa kareema iyo qashin aan u saarayay marka intaa xoogaa ku kala yareeyay laakiin ciidda insha Allah ma sii saarnaan doono kareemadaas iyo waxaas waan ka qaadi doonaa shoobinkaas soo armaajada dhan waxaan ka dhigi doonaa kaba iyo boorsa bes oo waxaan soo gadan doonaa kubidiin yar alaabtaan dul saaro marka boorsadaas waa xasuus gabar baa hadiyad iiga keentay Khadija noo salaamaya Khadija hadiyad iigu keentay boorsadaas guduudan aandan boorsooyinkeyga yar yarkaan boorsooyinka yar aad aan u jeclaan xirtaa soo boorsadaas guduudan soo saaxiibaday baa maaragtay ku soo xasuustaa maahan boorsooyinka yar yar ayaan xirtaa waa kasaade si fiican ayaan maaragtay u nadiifiyay armaajada biyo shaambala iyo biyo cad baa iskula dhaqay aandana kabooyinkii wixii waan kor saaray baalkaas yarka waxa iigu jira barfuunadeyda waxiga iigu jira amarsado daagli yani maalmaha u marsado wixii carafsan adan barfuuna badan ka maqan meesha soo buuxinaya ciid insha Allah guriga wala bedeli doonaa rooga daahiyada waxaan soo gadan doonaa insha Allah ismiik bood xataa maaragtay kan oo kubidiin waxaan soo komadu ma laha oo waxaan soo gadan doonaa naga ismiik boodaan dhahnaa oo make up iyo waxaas aan ku sameysto aan saartan soo gadan doonaa insha Allah wax badan ayaa bedelmi doono haddana alaabtii ayaan ku celcelinaya meesha isbeylka muraayadiina waan tirtiray weli waxaan daawanayaa dee bahalkii yaraa marba wax yar u joogo huufar baan soo qaatay huufarkii waa inaa guriga la huufar gareeyaa marka hore guriga waa inaa dhaqdhaqdaa hagaajisaa wasaqda ka qaadaa boor ka qaadaa kadibna huufar kadibna tirtirtaan soo maaha marka hadda huufarkii aan soo qaatay qeylada huufarka waa idinka damiyey bowsiisna waa ku xiray video sababtoo aad ayuu u dheeraan lahaa hadda ayuuba ila dheeriyaa video ani 10 daqiiqana ka badiyo ma jecli laakiin hadduuba 10 daqiiqo yahayba laakiin iska raan noqda hadaa igu caajisteen soo fadhiga
hoofarka intaa kala bixiyo ayaa maaragtay waxa wasaqda wixii galgalay birkimaha dhan dusha intaa kasoo qaada wixii hoosta ka galgalay marmarka qaar qashin baa ku daadaata soo waxaasoo dhan ayaa maaragtay hoofarka afkiisa ayaan marinayaa oo maaragtay wixii wasaqda dhan kaga soo qaadaya soo ma jecli aniga wax yar oo guriga wax yar oo maaragtay xasharaad ama wax yar oo wasaq inaan ku arko sababta aniga dhan waa jirinayaa nadaafa waa iimaanka barkeed soo maa nadaafadu النظافة نصف الإيمان مركا سفي ayaa maartay rogan waa bedelayaa daaha guriga waa bedelayaa insha Allah ciida guriga waa la hagaajinayaa waa loo labisayaa ciida sida aanay nafteyda aan u hagaajinayaa guriga loo hagaajin doona insha Allah waan ku fikrayaa hadan rooga ayaan jafaaya rooga markaan maaragtay uu fargareeyay hadan waa sii jafaaya sababtoo roogan waxaan u sii bedelayaa waxay tahay wax yar haduu ku daato dhex galaya wixii marka maatan waa inaa jafta marka waxaan soo gadanayaa rooga korka maaragtay la dareemay sabiibax ka oo wax yar uu ku dhaco ka qaban kartid isla markii uu ku dhex qarsaneenin kaas ayaan soo gadanayaa sababtoo waa muhiim kan laakiin waa maaragtay dundun ama timo ama dundun camal uu sameeyay soo wixii gala laga markaayo marka hoofarkii beel walba aan marinayaa sorry haday igu caajisteen guriga waa inaa mid la mariyaa kuraas hoostooda sariirta hoosteeda xataa waan galayaa dalaq baan siisanayaa madaxa si fiican adi meel ma dhaafayo alaabta ma awoodi karo inaa maanta dhan guro laakiin hal meel ma dhaafayo haddana laba dacsadood maala laba roo yariisa oo labada irid aan kala dhigo meeshaan kasoo galayo meesha guriga aan ka galayo labadaba jikadii weeyaan haddana jikada ayaan hoofarka marinayaa meel ma dhaafaan hoofarka jikada waa mariyaa suuliga waa mariyaa meel walba gaangaha meeshaan waxa weeyaan dhaxda armaajada dharkeyga iyo kabaheyga ii yaalaan oo musqushii kasoo horjeedaa hadan hoofarka waa dhameeyay waa xareeyay hadda waa kaasa macsalaama qolkaas waxaan ku xareeyaa waxyaalaha qashimada dhan aan ku guraa hadan hadda tirtirtaanka ayaa soo qaaday baashaas oo isbareyga aan soo qaatay oo dhulka loogu talagalay tirtiraha ana dhulka shaambo kuma tirtiro baashaas yartaa loogu talagalay isbareygaas aan ku tirtiraa guriga waayo nal bay ka dhigaysaa horena way ka qalajinaysaa qoqoyaan dhan ma dareemeysid yaa si fiican ayaa guriga u tirtirayaa waa kaas aragteen kuraasta waan iska leexinayaa kaliya sababtoo ah gurigu yar yahay guriga dhan baa la 4 mitir soo meel aan ku kala gurguro ma jirto markii alaabta waan jiidayaa oo meeshiisa ku celinaa hadana si fiican hoostiisa u nadiifinayaa saasaan sameynayay maadaama dee gurigu yar yahay sariirta hoosteeda markii hore hoofarka waa la galay haddana waa la galayaa tirtiraha yaa la deynin haddana jikada ayaan tirtirayaa meel walba hadaa hoofarka marsiiyey waa inaad tirtirahana marsiiyaa soo dhalaal hadaa arki leedeen guriga dhaldhalaalka ka baxayo waad yaabi leedeen cajiib haddana rooga ayaan soo dhigayaa waa badaalaba biyaa u baahnaan lahaa sooman sooman baa maaragtay duubaya codka igraal noqda markaas timahayga ayaa banaanaa waa inaan iga qariyaa sorry qofka markuu guriga hagaajinayo marada iyo waxbaa ka dhacaya soo ismooga roogii marka sariirta dhexdeeda yaalay ayaan dhigay haddana roogii tv-ga ayaan dhigay waa sida uu ahaabaan aan ka dhigay halkaas birkin yar baan saartaa si markaan maraba halkaasaan fadhiistaa saa isku santeeciyo birkinta u dhigtay dacsadii haddana guriga hortiisa yaala haddana dhigdhigayaa waaw waa kaasaa guriga waa dhamey 30 daqiiqa igu qaadatay waa wax yaro 4 mitir hadee guriga dhanba sariirtiin dhag baa ka siiyey fadhigii dhag baa ka siiyey luuqyadii dhag baan ka siiyey meel walba dhag baan ka siiyey luuq ma dhaafin alxamdulilah wuxuu iigu badbaaday waa guri yar hadduu weynaan lahaa ma hata dhan hal saaca ku jira ama 2 saacadood laakiin hadda kan 30 daqiiqo suuliga ayaa soo dhaqaya dhar badan oo iga wasaqan haddana dee waan dhameeyey alxamdulilah guriga xaggiisa waan dhameeyey guriga alxamdulilah waxaan aadi doonaa jikada iyo suuliga ayaa ii dhiman waayo dhag baan ka siiyey intaan waxba iima harin uunsi yar bisaa ii dhiman ku shido uunsigana ma jeceli waayo waxaan qabaa asmo soo neefta igu dhageysa laakiin wax yaroo caraf oo shumacyo ayaan daartaa ama wax yaroo uunsi meel dheer ah intaa guri ku shidaan ka baxaa haddii kale waan jiranayaa soo ma raba inaan maarata xanuunsado nafteeda waan jeclahay carafta badan soo way dhibaysaa macalaa geedahaas way dhibayaan ilaahay caafiya caafimaad buuxdaan ka baryay jawigiisaas u degan yahay u macaan yahay barwaaqo alle ilaahay baan keenay roobka walaahi rabadaan ma dareemaysid waa raaxo jawi yaroo macaan oo raaxaa dareemaysaa and then hadda suuligan dhaqayaa hadda waxaa ii dhiman jikada weelkaana dhaqayaa
hadda weelkaana dhaqaya meeshaan hagaajinayaa iyo jikadan kala hagaajinayaa in yar meeshaan dhag baa laga siin haddana waa kana jikada imid suuliga jikadan ku hormarsiinaya si fiican weelka yarka wasaqda ah meesha yaalay xalay ayaan ku suxuurtay intaas iyo cabitaanada waxaan ku sheedanaya waa wax yarba weel aniga weel maba dhigtaba saxanka wax ku cuno ama biyaha waxa aan ku cabo horaan ka dhaqaaso adduunka waxa u necbaa weel inaa dhigo nadaafad ahaan uma fiicnaan ahaan iyo ma fiicna weelka igu badanayo soo hadaa jecesha najma camal caajisleey aad tahay saxanka wax ku cuntid hore ka dhaqso waa tipsi fiican soo ma aan ku siiyay aandan weelkii waan dhaqay waan dhammeeyay haddana jikada waxaan hagaajinayaa shaamba ayaa halkaas ku dhaqaaya si fiican meesha weelka lagu dhaqo iyo darbiyada iyo maaragtay meelaha u dhow dhan waayo jikadu aad bay u caddahay marka waa inaan nadiif ka dhigtaa wasaq dhan uusan kaa noqon rabadaanka maalintuu soo galayay guriga si fiican uma hagaajin maxaa la dumaashi arkeentka un baa hagaajiyay laakiin maanta si fiican aan u hagaajinayaa and then darbiyada meel walba si fiican baan u dhaqay nadiif weedanaaba ka yaabo dhalo marka horta markay gurigu nadiif uu yahay ama dhalo ku yahay adiga dhan irtaax ma ila dareentaan aniga hadduu hal saxan wasaq meel aan ku arko soo aniga dhan niyadda iga jabaysa waxaan ahay dadka sensitive-ka wax yar soo hadda waa kaas alxamdulilah waa dhameeyey haddana jikadii waxaa ii dhimanaan doonto suuliga un jikada olba iska nadiif ayay ahayd marka bis marada shaambada la wax yar marmarinayaa and then halkaas waxaa ii saaran saliidihii iyo marka kama qaadi karo saliidaha iyo waxaweyaan caagada katarka kadibna waxaan soo galay suuliga wasaq ah oo waa in ayada suuliga nal laga dhiga ayadana soo dan dhar badan oo wasaq ah meeshaas igu jiray maaragtay maalmahan caajis aan bilaabay waan maaragtay caajis aan dareemayay rabadaanka iga awood badiyay soo dharka ayaan dhaqayaa haddana suuliga ayaan xaaqayaa maadaama huufarka iska xareeyay haddana waan dhaqay kuleeyahay guriga dhan maasha allah jawiga maanta qabow ayaan ka faa'iidaystay jawi yaro qabow oo wax kale iima harin waxa ii dhiman in aniga soo meerto soo qabaysto subscribe noo saar like and share naga hilmaamin wax kasta aad jeceshiin oo iisoo sheegi kartaan aan idiin soo gudbiyo soo aniga saan ayaan jeclaaday anoo maanta guriga iska hagaajinaya idinkan inaan iisoo gudbiyo